kadib markii ay ka soo kicitimeen waddanka Soomaaliya xubnihii iskugu jiray ganacsatada iyo culimada iyo odayaasha dhaqanka koonfurta Soomaaliya ayaa diyaaradii ay sidii waxay saaka soo caga dhigatay degaha diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaana halkaasi salaan diiran ula diyaar ahaa xubno ka tirsan xukuumadda galwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo dadweynahaasi ballaaran markii loo sameeyay waftigani ka socda koonfurta dalka Soomaaliya ayaa u kicitimeen qolka nasashada ee VIP-da madaarka Cigaal International ee Hargeysa waxaana ugu horeyn bartaasi ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliya Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Shukri Sheekh Axmed Cabdi Talaan oo kamid ah gudida abaaraha Soomaaliya ka damqaday sidoo kale baahida ka jirta dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee Somaliland waxay tahay maalin taariikhi ah waa maalin runtii baaldahaba ku qoran ilaahay agtiisa subxaanahu wa ta'ala ku qoran dareenka ummadda Soomaaliyeed ee magaca Soomaaliyeed wadaagta dhaqanka Soomaaliyeed wadaagta ku qoran waa dareen walaaltinimo oo runtii halkan aanu mahad ballaaran oo weyn ta ilaahay baa horeysay aan uga xeer iyo dhaqanna waynu lahayn waa idin sugaynay waa idin ka filaynay sidaa noo sugayseen nooga filayseen waa waajib aa gudateen waan idinka mahadnaqaynaa muxuu ahaa dadka waxaa quluuftooda isu soo jiida markay dhibaatooyinku jiraan si ay isu xasuustaan marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu dareen walaalnimo ehelnimo jaadnimo ina midaynayo waftiga qiimaha badan leh ee halkan jooga dhammaantoodba culimada ganacsatada haweenka waxaan ku soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afka gudida heer qaran ee taakuleynta abaaraha ee uu magacaabay bishii February 13keedii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud afkan ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa waftiga walaaladeen maanta oo sidoo kalena waxa waftiga ka socda koonfurta dalka Soomaaliya oo hadlay oday Maxamed Xasan Alaad Sheekh Nuur Burhan bina Maxamed wala alihi wasaxbihi wasallam baad walaalayaal soo dhaweyntiina iyo firfircoonidiina iyo dareenkiina wanaagsan waa ka mahad celinaynaa marka hore annagu waxaan nahay sida aad ogtiinba wafdi saaga ka soo baxay magaalada Muqdisho oo ka kooban bulshada qaybaheeda kala duwan sida hogaamiyaasha dhaqanka culimada diinka ganacsatada waajib wadaniya dadkani waa isku jismi kaliya innagoo muslimiin oo dadkii ah nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam mathalul mu'minina fi tawaadihim wa taraahumihim wa ta'adufihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tadaa'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahri wal-humma innagoo dadkii sida uu nabigeenu ku sifeeyay calayhi salaatu wasalaam haddana waxaan la qarin karin waxaan nahay dad walaala oo Soomaali ah ayaan nahay isku jismi ah Somaliland Space Channel Cigaal International Airport ee Hargeysa